السلام عليكم سوري waa saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Saarax halka aan nagala socotiin waa Hemel Media Production isoo kale Hemel High School saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan ku bar doonaa sida aad ku soo aragteen title-ka hore sida uu u shaqeeyo iyo qaabka loo isticmaalo Adobe Premiere Pro CC 2020 ama haddii aad si kale yiraahdo farshankii 2020 si loo isticmaalo iyo qaabka uu shaqeeyo ayaan muuqaalkeena maanta uga hadli doonaa haddii aad is leedahay ma la hadlo 2021 ka farshanka 2021 farshanka waxyaabo badan ayaa futureskiisa ka dhiman oo lagu soo wada diray oo hadda midka la isticmaalaa waa 2020 hagaag saxbiyaal haddaba maadaama in badan ayaga soo codsateen inaan Premiere Pro muuqaalo ka istixaanaha ka soo sameeyo waxaan ka sameey doonaa ku dhawaad 12 muuqaal ayaan ka sameey doonaa oo mid walba casir gaar ah oo hogaami doona haddaba saxbiyaal waxaa jirto sidoo kale inaan casir ka sameynay waxa la yiraahdo slide inaan ka diyaarinay slide-yo inaan ka diyaarinay ayaa iyadana jirta saxbiyaal balse dhimanahan waxa dhan waa hagaaji doona saaxiib ugu horeyn waxa la soo degi doona Adobe la yiraahdo Media Encoder waxaan dhigi karaa dalaal sida dalaalka oo kale ayuu shaqeeyaa dalaalku sidiisaba qofka wax gadayna maaha qofka wax laga gadana maaha laakiin waxa waaye qof isfahansiiyo labadaas qof oo isku xiro Media Encoder waxa uu noqon doonaa Adobe aan waxba ku edit gareynayn waxna aan maartay ku kaydsanayn laakiin wuxuu noqon doonaa midka inta badan wax noo seefo oo noqon doona saaxiib waaya wareen saaxiib waxa sameey doontaa inaad soo furtid Google Chrome inaad soo furtid ayaa sameey doontaa kadibna linkiga aan ku soo dhigi doono qaybta hoose ee muuqaalka labada software la kala yiraahdo Adobe Media Encoder iyo WinRAR labadaba la dig saaxiib waxa ay noo qabtaan halka ay ku ga doonaan saada marka u soo furtid saaxiib Google Chrome-ka kadibna halka qaybta sare search waxa ku qoraysaa Adobe Media Encoder CC 2020 ayaa ku qoraysaa saaxiib sidii markuu qortid saan ay kugu soo bixi doonaa hoos ayaa u soconay tineenta ka arki dootid meel ay ku qoran tahay download 64 bit meel ay ku qoran tahay ka arki dootid haddii computerkaaga uu yahay 32 bit mid 32 bit aad degso laakiin aniga computerkaaga hadda waxa waaye 64 bit waxaad degso doonaa midka 64 bitka qaybtan download ayaa ku dhufanaa kadib marka sidaan oo ugu soo furmo waxaa sameey doonaa qaybtan waxa u jeedaa in hadda meesha skima tirine ayaa u jeedaa inta meesha skima ay siira ka geeyne ayaan sugaa saaxiib siira markay geedo waxa soo bixi doona falaartan download markay soo baxdo markaas dul istaago cagaar ayay noqon doontaa sida ujeedid kadibna ayada ayaan ku dhufan doonaa saaxiib marka ayada ku dhufatid waxa uu sameey doonaa inuu software-ki dejiyo ayuu bilaabi doonaa laakiin aniga hadda uma baahni in software-kan aad dejiyo sababtoo ah horay ayaa computer ugu shaqeeyay saaxiib software marka computer ku soo dejiyo waxa uu gali doonaa qaybta downloadska ee computer-kaaga ayuu gali doonaa saaxiib qaybta markaas soo furtid software-ki waa kana hadda saan ayuu marka hore kugu soo bixi doonaa software-ka aad ku sheegay ee la yiraahdo WinRAR waxa uu noo suurtagelinaa software-ka markuu sidaan noogu soo baxo inuu nooga dhigo sida app dhameystira si software-ku oo inoogu shaqeeyo haddaba waxaa sameey doontaa markuu sidaan kugu soo baxo right click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay extract file ama extract here haddii aad rabtid inaad desktop ka dhigatid iyo haddii aad rabtid inaad meeshan ku extract gareydid labada mid ka rabtid adiga ayaa u door leh extract file ama extract here mid ka rabtid aad dhigi doontaa saaxiibayaal marka hadda aniga hore ayaa u extract gareeyay waxaa sameey doonaa deertaan marka extract ku sameeyo sidoo noqona waa su'aasha kale ee ma karto extract marka ku sameeyo waxa uu noqon karaa sidaan waxa u jeedaa hadda meesha waxa u jeedaa file inay yeelato kadibna daa file-kan afuro waa kana setup-ka oo dhameystiran buuggiisa tutorial-kiisa wixiisa dhan wato inuu ugu jira u jeedaa haddana waxaa sameey doontaa setup marka sidaan kugu noqon right click ayaa dhigi doontaa kadibna open ayaa dhigi doontaa aniga hore ayaa u soo dejiyo in hadda open dhaw uma baahni saaxiib hadda open dhaw ayad ayuu soo kici doonaa waaya intaas markaa sameeyo kadib waxaa sameey doonaa inaan soo kiciyo baalka la yiraahdo Adobe Premiere Pro inaan soo kiciyo ayaan sameey doonaa saaxiib Adobe sidaan ayuu kugu soo kici doonaa interface-kiisa hore ama wajigiisa hore sidaan waxa u jeedaa inuu hadda wado process inuu wado inuu soo kaco ayaa u jeedaa Adobe marka hore wuxuu sameey doonaa shaashada noocaana ayuu kugu soo furmi doonaa shaashadan madowga ayuu kugu soo furmi doonaa qaybtan iska xir qaybtan cancel iska hadda ma baahan shaashada madowga noocaan shaashadan marka ma ahan shaashada wax lagu edit gareeyo ama wax lagu hagaajiyo ma ahan haddaba si aan u tago shaashada wax lagu hagaajiyo waxaan sameey doonaa in halkaas ay file ku qoran tahay ku dhufto kadibna aan new iraado ka sii iraado new project inaan ka sii doorto sidoo kale waxaan sameey karaa inaan iraado control plus alt plus n inaan iraado ayadana waa sameey karaa waaya waxaan sameey doonaa keyboard-ka ayaan soo kici doonaa si waxaan sameynaa ay ila aragtid waxaan dhigi doonaa si aad u soo furo new file sa u soo furo waxaan sameey doonaa file aad u taga new alaya kadibna waxaa leeyahay new project ama waxaan isticmaalaa shortcut-kan control plus alt plus n wala haddaba sida shortcut-kan u aragtiin waxaan sameey doonaa inaan iraado keyboard-ka idin soo muujata keyboard-ka u wada jeedin waxaan dhigi doonaa control plus alt plus n ayaa dhigi doonaa waaya hadda waxaa u jeedaa
waxaa ii soo furmay new file waxa la yidhaha halkan waxaa ku qori doonaa faylka magaciisa ayaa halkan ku qori doonaa magaca ayaa qaybta kore ku qori doontaa oo waxaa dhihi doonaa bilow ayaa dhihi doonaa halkan sidoo kale waxaa ujeedaa inay noogu qoran tahay location halka lagu seefaa muuqaalkaaga waxaa dhihi doonaa ani waxa igu seeftaa desktop haddii aad rabtid inaad ku dhex seefatid faylaska kugu yaala desktop ka mid a waa samayn kartaa faylka ayaa dooranaysaa kadibna waxaa leedahay selective folder ayaa dhehaysaa ani marka hadda ma rabo taas waxaan rabaa inaan desktopka keligiisa ku seefto ayaan rabaa markaa desktopka kasoo soo galo selective folder ayaa leeyahay folderka u aqoonsan doonaa desktop kadibna waxaan leeyahay okay aan dhihi doonaa saaxiibayaal okay markaa yidhaahdo shaashadan ayaa ii soo kaca shaashadan waxaa ujeedaa inay ka kooban tahay 4 weji inay ka kooban tahay bal haddaba qaybteena slide-ka ayaan ku laaban doonaa si aan u fahmo shaashadan 4 weji ka kooban tahay iyo waxa ay noqotaa 4 weji ay shaashadan ka kooban tahay horta waa 4 weji wejiga koowaad waxaa la yiraahdaa project bay waa meesha muuqaalada laga soo geliyo hadda Premiere Pro marka muuqaal soo gelinaysa qaybta muuqaalada ka soo geli doonto waxay noqon doontaa project bay waa meesha muuqaalada laga soo geliyo sidoo kale waxaa jiro waxa la yiraahdaa timeline ayadana waxa waaye waa meesha muuqaalada codadka iyo sawirada lagu jarjaro markasta oo aan rabno inaan wax jarjarno waxaan isticmaali doonno ama qaybta aan tagi doono wax ku edit garay doono waxay noqon doontaa qaybtan la yiraahdo timeline sidoo kale waxaa jirto waxa la source monitor waa meesha codka iyo muuqaalka lagu kala reebo waa source monitorkan codka iyo muuqaalka meesha lagu kala reebo waay haddii aad rabtid muuqaalka bis inaad soo qaadatidna muuqaalka bis ayaa soo qaadan doontaa haddii aad rabtid codka bis inaad soo qaadatidna codka bis ayaa soo qaadan doontaa sidoo kale waxaa jiro oo qodobkan ugu dambeeya ah program monitor waa meesha waxa aad hagaajinaysid ay kasoo muuqan doonaa hadday ahaa lahaayeen video hadday ahaa lahaayeen audio hadday ahaa lahaayeen picture wax kastoo hagaajinaysid meesha ay kasoo muuqan doonaa waxaa la yidhahdaa program monitor haddaba 4 weji ee soo muuqan doonto waa tanaab 4 weji soo muuqan doonto 4 weji waa saaxiibayaal wejigan ugu horeeyo waxaan muuqaal ka soo geli doono waxaa la yiraahdaa project bay wejigan ku xigo oo aan muuqaalka ama codka ama sawirka aan ku jarjari doonana waxaa la yiraahdaa timeline ayaa la yiraahdaa sidoo kale meesha muuqaalka uu ka soo muuqan doonana waxaa la yiraahdaa program monitor ayaa la yiraahdaa halka ii suurta gelinayso inaan muuqaalka asaga videoga bisa soo qaata ama codka bisa soo qaata halka ii suurta gelinayso waxaa la yiraahdaa source monitor haye waaya saaxiibayaal warna marka waxaa aadi doonaa Adobe Premiere Pro ayaa hadda si toos ah u aadi doonaa saaxiibayaal waxaa ujeedaa shaashada inoo soo furantay nuucan ayay inoogu soo furantay halkan waxaan ku sheegnay soo geli doono muuqaalka si haddaba muuqaalka u soo gelsho waxaan mari doonaa 4 wado ama 4 step ayaan mari doonaa 4 step ayaan mari doonaa waxay tahay mar koobaad inaan iraado meeshan double click inaan siiyo kadibna aan muuqaalkii soo doorto meesha muuqaalka yaala aan soo doorto aan salaad wuxuu yaala desktopka local disk si kadibna waxa ka sii dooranaa halka ay ku qoran tahay lessons waxa ka sii dooranaa himlaha isku ka sii dooranaa computer adiga software ama basic oo kala ka sii dooranaa muuqaalka inaan sidaas soo gelsho oo iraado halkan double click siiyo muuqaalkii aan soo qaato waa qodobka labaad waxaan sameyn karaa inaan right click iraado kadibna aan iraado import halkaas ugu qoranta import inaan ku dhufto kadibna aan muuqaalka soo qaato waa qodobkayga labaad agaag sidoo kale waxaan sameyn karaa saaxiibayaal inaan iraado halkaas faylta ku dhufto inaan halkan hoose ka doorto ay ku qoran tahay import inaan ka doorto 3 qodob halkaas ugu gudo qodobkan ugu dambeeyo waa shortcut waxa uu noqon doonaa inaan isla qabanno waxa la yiraahdo control plus I inaan isla qabanno ayuu noqon doonaa saaxiibayaal waxaan isla qaban doonaa control plus I ayaa isla qaban doonaa saaxiibayaal control plus I ayaa dhigo control plus I markaa iraahdo muxuu sameeyay sidii oo kale ayuu sameeyay wuxuu geeyay meeshii aan muuqaalka ka soo qaadan lahayd marka muuqaalka sidaas ayaa ku soo qaadan karaysa oo muuqaalku meesha ku yaalo ayaa soo dooranaysa kadibna waxa dhigi doontaa muuqaalka halkan ii soo gali ayaa dhigi doontaa saaxiibayaal waxaan sameyn doonaa aniga hadda waxaan kasii tagi doonaa file kale ay ku noogu qoran tahay lessons ayaa kasii taga lessons markaa kasii taga waxaan kasii doonaa himlaha high school waxaan kasii dooranaa computer basic muuqaalkeena koobaad oo kale open haddii hadda aan iraado waxaan sameyn doonaa inuu muuqaalki meesha ku soo furo oo halkan muuqaalki oo kaaga soo muuqdo ayuu sameyn doonaa saaxiibayaal waayahay intaan markaas sameeyay waxaa jirta hadda halkan muuqaalka halkan kaliya ayuu u yaala sidoo kale meeshan ma soo geli karaa picture ma soo geli karaa haa sawir waa soo geli kartaa laakiin muuqaal kale ayaan ku baran doonaa qaabka sawir iyo muuqaal wada socdo loo soo gelsho insha Allah mar kale ayaan ka hadli doonaa halkan waxaa la yiraahdaa timeline waa meesha aan ku jarjar doono muuqaalkeena sawirkeena ama codkeena saddexda meesha aan ku jarjar doono waxay tahay qaybtan waxa la yiraahdaa timeline ayaa la yiraahdaa waaya qaybtan timeline marka si aan muuqaalkii u keeno oo aan muuqaalka u jarjar karo muuqaalka ayaa soo jiida kadibna waxaa keeni doonaa qaybtan la yiraahdo timeline ayaa keeni doonaa saaxiibayaal qaybtan la yiraahdo timeline
ayaa keeni doona muuqaalka marka hadda qaybtan timeline ka keenay wuxuu muuqaalkan diyaar u yahay inaan jarjaro inaan maartay qoraal ku daro inaan animation ku daro transition ku daro wax walba inaan ku sameeyo muuqaalkan hadda diyaar u yahay waxa ii suurta gelinaya waxa soo inaan sameeyo qaybtan la yiraahdo timeline ka ayaa ii suurta gelinaya saaxiib waaya hadda waxa ujeedaa monitorka qaybtan aan ku sheegnay program monitorka aan ku soo sheegnay anagoo ku dhufanin ama muuqaal ku jiidin inuu muuqaalka si toos uga soo muuqday ayaa ujeeda saaxiib waxaa markaa sameey doontaa qaybtan la yiraahdo program monitorka intaas ayada sameey doonto muuqaalka ayada ku soo bandhigi doonto haddii aad rabtid size-ka inaad sii weyneyd ayaa size-keeda haddii aad rabtid inaad yareeyid halkaas ay ku xukumi doontaa sidoo kale video size-ka haddii aad rabto muuqaalka waxa ujeedaa si normal ah ugu muuqdo video ii door haddii aad yiraahdo 25 oo kale waxa ujeedaa muuqaalkii aad ayuu u yaraaday marka qaybtan halkaas waxa ka doorataa feedkeeda u dooro halkan marka aad rabto waxa ujeedaa waxba naguma jiraan qaybtan waxa ku soo sheegnay search monitor waa meesha inoo suurta gelinayso inaan muuqaalka asaga dhan soo wada qaadano oo aan soo qaadano video kaliya inaan soo qaadano waa qodob inaan soo qaadano codka kaliya oo maqal kaliyana waa qodob labadaas qodob waxa noo suurta gelinay waxay tahay qaybtan la yiraahdo search monitor-ka waa bal hadaba waxaan sameey doonaa waxaan oo dhan control set ayaa dhigi doonaa dib u soo celin doonaa muuqaalka hadda waa kana muuqaalka halkan ayaa hadda ku jiidi doonaa halkaas ayaa geli doonaa saaxiib muuqaalka sidoo soo qabana waa jiida kadibna halkaas ayaa ku sii dhaxdeynay sidaas oo sameeynay waaya hadda muuqaalka markuu sidan yahay haddii aan rabo muuqaalkan inaan soo qaato codkiisa oo kaliya laakiin aan ka soo tago muuqaalka waxaan sameyn doonaa halkaas ay ku qoran tahay video halkaas muujadido hadda hoosteeda maxaa qalinka hoostiisa waxaan ku soo qormay drag video only soo jiid codka kaliya waa soo jiid codka kaliya marka waxaan sameyn doonaa qaybta markay saas u saaro gacanta soo baxdo waa soo jiidi doonaa waxaa keeni doonaa qaybtan la yiraahdo timeline ilaa waxaan rabaa inaan jarjaro codkan ayaa rabaa marka waxaan keeni doonaa qaybtan timeline ka la yiraahdo ayaa keeni doonaa waaya kadibna waa ku sii deynaa hadda markii aan sii daaro monitorka waxa ujeedaa way madowdahay dhaladii aan ka arki lahayn wax way madowdahay sababtoo ah meeshaan hadda video kuma jiro waxaa ku jira audio clear ku jiro cod bis ayaa ku jira bal haddaba waxaan dhigi doonaa balay si aad ila aragtiin saaxiibayaal assalaamu calaykum barwa saaxiibayaal meel kasta oo ka joogtid magacaygu waa Axmed Faarax halka aan nagala socodsiin waa Amina Migo hagaag waxaa ujeedaa saaxiibayaal hadda codka kaliya inuu meesha inoogu jiro hadda dii aan rabo codka bis inaan jarjaro laakiin muuqaalka oo nadiif yahay muuqaalka rabin inaan jarjaro codka kaliya ayaa halkaas soo geli doona sida isticmaalaan wariyaashuba waxaan sameyn doonaa inaan halkan codka kaliya ku soo garay kadibna muuqaalkii aan ku soo dhax furo ayaan sameyn doonaa saaxiibayaal hagaag bal haddaba markaa muuqaalka bis isagana ma soo geli karaa ha muuqaalka bis soo geli kartaa muuqaalka markuu saan ku yahay halkaas ay ku qoran tahay ayadana track video only videoga bis soo jiida halkan soo geli meesha ay noogu qoran tahay ayaan dul tagi doonaa kadibna waxaa dragon ku sameyn doonaa videoga oo kaliya halkan ayaa waxa soo geli doonaa videoga salaanta marka hadda videoga halkan aan soo gelsho kale waxa ujeedaa hadda videoga balayga iraado wuxuu noqon doonaa cod la'aan haddii uu cod yeesho waxaas la socdo videogii iyo maartay videoga ayaa isla socdo marka qaabka loo kala reebo labadoodana way inoo soo socotaa bal haddaba balay aan dhaho si aan u wada aragno inuu videoga kaliya noo yahay oo video animation sameynaa wax cod leh inuu noo yahay inuu dhameystirayso wadaagano bal balay aan dhahan hadana waaya hadda si toos ah ayuu u socdaa muuqaalku oo halkaas waxa ugu jeedaa inuu muuqaalku processing wado ama shaqeynaa ayaa ugu jeedaa sidoo kale desktop-kan ayaa ka arki doontaa shaqada oo wado marka muuqaalkan waxa waaye error kale ma jiro kaliya waxaan ka soo tagay codkii oo waxaan soo qaatay muuqaalkii kaliya ayaan soo qaatay waaya saaxiibayaal hadda maanta waxaan filaa horta afartan dhalo iyo waxa ay noo qabtaan waa la kala fahmay sidoo kale saaxiibayaal waxaa jirto waxa la yiraahdo waxa sequence waxa la yiraahdo ayaa jirto sequence-gu waa xawaay size-ka dhaladan ay noogu soo muuqan doonto muuqaal kale ayaa u hadli doonaa haddii ay tahay marka ugu horeysay ee muuqaalku soo gaaro muuqaalka like saar siina share garay qaybta hoose comment-ga wixii su'aal ay qabtid inoogu soo qor annaguna waa kaga soo jawaabi doonaa hana u dayma la'aanin cashirta xiisaha leh ee halkan ka socda kuma hadsanid daawashadaada